xisbiga CEDU ee hogaamisa Angela Merkel ayaa doorashadii saaka ee ka dhacday gobolka Saarland wadankan Jarmalka ayaa waxay noqdeen kuwa ugu codka badan oo ay heleen 41%, halka xisbiga soo xiga uu ahaa xisbiga SPD oo helay 29.5, Linke oo helay 13%, Grüne oo isaguna helay 4%, FDP xisbiga la yiraahdo oo helay isaguna 3%, Pirate oo helay 0.7, sonadka la yiraahdo ama sonadka Partaygan oo helay 2%. haddaba waxaan ka mid noqon doonin baarlamaanka doorashada soo socota fariisan doonin ama xildhibaan aan ku yeelin doonin labada xisbi ee Grüne iyo FDP. xisbiga AFD ayaa isagu waxa uu helay 6%, taasoo ka dhigan inuu helay 3 xildhibaan gobolkaas, halka CDU helay 24 xildhibaan, SPD-na wuxuu helay 17 xildhibaan, halka Linke uu helay 7 xildhibaan. waa Muuse Daco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.